ku horeyn wadamada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin iskaashiga ganacsiga, amniga iyo horumarinta sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya. Heshiiskaas ayaa la gaaray kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay boqosho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta uu kulan la qaatay madaxweynaha uu martida u yahay Sheekh Mohammed bin Zayed. xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay aad u litay kadib markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafkii u dhaxeeyay dowladaha khaliijka iyo dowladda Qatar oo ay Soomaaliya aad isugu dhawaayeen. waxyaabaha lagu heshiiyay ayaan wax ka weydiiyay Cabdikariin Cali Kaar afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. qodobadii la afgartay waxa ugu waaweynaa 20 milyan oo dawladda Imaaraadku ay ugu deeqday abaaraha, fududeynta muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeynay fiisaha Imaaraadka, in airlineska Imaaraadku ay bilaabi doonaan duulimaadadoodii Soomaaliya, hospital la yiraahdo Sheikh Zayed oo ku yaala magaalada Muqdisho isna si bilaash dadka loogu daweyn jiray in dib loo furo, wafdi heer sare ah oo Imaaraati ahna inay Soomaaliya yimaadaan. marka qodobadani waxay ahaayeen kuwa ay wadatay dowladda Soomaaliya mise waxa watay Imaaraadka? والله wada hadalkii madaxdu wada hadashay iyo kulankoodii wixii ka dhashay dhacayeen oo soo baxay lacag 20 milyan ah oo abaaraha ayaa ay sheegeen in ay bixinayaan. marka dowladda Imaaraadka miyaa maamulaysa mise dowladda Soomaalida? waxa specifically afka lagu dhuftay oo carabkana lagu adkeeyay in dowladda Soomaaliyeed maamuli doonto lacagta 20 milyan ee loogu talagalay abaaraha. muuqaallo villa Soomaaliya la soo galiyay waxa lagu sheegay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan arrimaha marka noo faahfaahay bal arrintaas. arrinta amnigu waa arrin muhiim ah gobolka iyo ereyadan aanu deganahayna muhiim bay u tahay dalalka beed ee aanu islaamnimada iyo jaamacadda carabta ka mid ahaanshaheeda wadaagna muhiimad gaar ay u leedahay in amniga ka wada shaqeyno. marka arrimaha amniga oo guud ahaan regionka iyo gaar ahaan wadamada islaamka ku saabsan bay ahayd in la iska kaashado. Imaaraadka hore ayay ciidamo u tababarayeen. marka iskaashiga ammaanka ee la sheegayo ma la oran karaa waxa uu ahaa in ay dib u bilaabayaan tababaradii hore ee ciidamada ay bixin jireen? wallahi iskaashigu nooca uu noqon doono iyo sida la isku kaashan doono iyo waxa ay labada dawladood isweydaarsan doonaan waxa go'aankeeda yeelan doona guddiyo isku dhaf ah oo la isku raacay in la dhisi doono. guddigaas markaa yeelan doona go'aanka iyo sida uu ekaanayo iskaashigu. waxyaabaha la soo hadal qaaday waxa ku jira dhinaca fiisaha. Soomaalidu Imaaraadka mar walba way tagaan, ganacsatada way tagaan, dadka kale caadiga way tagaan. marka waxa hadda la fududeynaya la sheegay waa maxay? waxa la fududeynaya Soomaalidu waa tahay oo waa dad socod badan oo reer guuraa ah, ganacsi badanina uu ugu xiran yahay dalka Imaaraadka. waxa kaloo jirta markii maamulkii hore xiriirka labada dawladood oo xogaa yar hoos u dhacay in ay bilaabatay muwaadiniinta Soomaaliyeed soo galayana in fiisaha culays u yimaado. kuwii halka hore u joogayna haddii cusboonaysiinta noqon lahayd iyo haddii ay ka dhex shaqaynta noqon lahayd bayadana oo culays kale ku yimaadeen. marka waxa la fududeynaya waa in muwaadinka Soomaaliyeed marka uu doonayo inuu yimaado halkan uu fiisaha si fudud ku helo. kuwa halkan joogana iqaamadaha iyo fiisayaasha halkan ay ku joogayaan iyadana in maadaama xiriirka labada wadan hagaagsan yahay in iyagana la fududeyn doono. laakiin soo ma moodid marka la fiiriyo qodobadan hadda la leeyahay waa lagu heshiiyay in ay yihiin kuwa dhinac u daneynaya oo Soomaalida aanay faa'iido badan ugu jirin? Soomaalida 20 milyan oo abaaraha loogu deeqay faa'iido ugu jirta in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee danaha fara badan ganacsi iyo horumarin bale ay uga xiran yihiin dalka Imaaraadka in fiisaha loo fududeeyo faa'iido Soomaalida ugu jirta. in diyaaradaha Imaaraadka oo aad garanayso caalamka halka ay ka joogaan iyo si inta wadana ay tagaan ay Soomaaliya duulimaadyo ka bilaabaanna waad garan kartaa isku socodka iyo ganacsiga iyo horumarkaba waxa ay ka tari karaan. isbitaalka isna xirmay oo dib loo furayo oo dadka Soomaaliyeed si lacag la'aan loogu adeegi jiray isna waad qiyaasi kartaa faa'iidada Soomaaliya ugu jirta. marka waxa ay muuqanaysaa dhan u janjeerida aad sheegaysaa inay dhanka Soomaalida u janjeeraan. Imaaraadku hore way u joogeen oo way arkayeen waxyaabahan hadda ay heshiiska Soomaalida kula galayaan. marka hore maxay heshiiskan ula gali waayeen dawladii hore? damay walaal haddii aynaan isin tirin maamulkii hore iyo dawladda Imaaraadku xiriir ahaan waad garanaysaa halkii ay kala gaareen. waxa safarka iyagu ku saabsan oo madaxweynuhu halkan u yimidna waxa bay ahaydba in halku dhigi ahaa Soomaali dunida heshiis ah in laga bilaabo. waad garan kartaa markii Soomaali heshiisa la fulinayay waxa laga bilaabay dawlad goboleedadii xoogaa mugdigu uu kaga jiray maamulkan cusub. haddana safarada dibadda waxa lagu bilaabay wadamadii xiriirkoodu uu barihan aanu sidii loo baahnaa ahayn. marka waa soo celinta, hagaajinta, toosinta iyo iskaashiga labada wadan ka dhaxeeya soo jireen ah.